السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب كسلي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويوم مانتا ومالين أنا وأندوبيو 10 كيويان ومالين إسنين هذا إسنين تا مالين تيدا ومالين نبي محمد بالشيء ونا هجرودي وجوسدي ودينتي نمان تدبه ومالين إسنين أي كسو آذين صلى الله عليه وسلم نبينا نحريسنا بتجدي كل كيساهاته ما أنت 10 كينا وحن كسو قاعدنا يا بوجينا الله يقيني A to Z English to Somali words buuggii erayada aan ku baranaynay arday fara badanna ay iga iibsatay buuggaas waxaan kugu siin doonaa qaybta markaasi WhatsApp-ka dad igu imaato isagoo PDF ah kaliya waxaad bixinaysaa lacagta yar ee buugga aad ku iibsan doonto qof kasta ayaa iga iibsaday oo gaarayaan boqolaal arday haddaba haddii aad u baahan tahay buugga noocan oo kale ah isagoo PDF ah fadlan numberkan igala soo xiriir saaxiib waxaan ciwaankiisa u yahay maanta words starting with B waxaan baran doonaa erayo ka bilaabanaya xarafka B part 11 qaybteedii 11aad way haddaba qaybtii koowaad ilaa iyo qaybtii 11aad ayaad YouTube-ka ka helaysaa hadda free PDF hadda PDF-ka anigu aan akhrinayo waxaan soo dhigay qaybteena Telegram-ka adiguna waad ku biiri kartaa Telegram-ka marka kadibna PDF-kan waad degsan kartaa iyadoo free ah okay qaybta 11aad way waxa ka bilaabanaysaa 199aad ayaan ka bilaabaynaa okay ereyga wuxuu ku leeyahay prink waa maxay prink waa qarka u saaran wax aad u buuxa oo aad markaasi inuu marka fatahaad laga cabsanayo webiga oo kale oo isticmaala qarku u saaran yahay oo kale marka prink ereygaana marka qaadanaysa commentiga ayaad jumlad igu qoraysaa adoo ereyga soo gelinayo haddii adigu rag aad tahay fadlan soo samay sidaas prink waa maxay prink waxa weeyaan waa qarka u saaran wax aad u buuxa way macnaheed kan ereyga 200aad waxa weeyaan waa bombardment okay bombardment English ahaan waa kan anagu waxaan ku fiicannahay buuggeena markaad iibsato waxaad helaysaa ereygii oo English ah sidaan ah kadibna dhawaaqiisa af Soomaaliga ugu dhawaaqi lahayd kadibna macnihiisa ayuu ku qorayaa buuggan isagoo marka qiimo yar ayaa lagu helayaa bana 100 page waaye buuggan maadaama marka ma yara buug yar ma aha buugga marka ereyga labaad ereygan wuxuu ku leeyahay 200aad bombardment waa duqeyn way duqeyn ereyga bombardment hadaad baratay jumlad ma gelin kartaa fadlan qaybta comment ku soo qor jumladaas ereyga 201aad waxa weeyaan waa behind dhiidan waa la qarinayaa waxaa leeyahay behind inta fiirso behind macnaheedu waa maxay ka dambeeyo way ka dambeeyo tusaale ahaan anigu waxaan dhahaa I am sitting behind Omar anigu waxaan fadhiyaa Umar meel ka dambeeysa oo Umar dhinaciisa fadhiya oo kale way marka behind waa maxay marka ka dambeeyo way behind waa ka dambeeya ereyga 202aad waxa weeyaan waa balance kulaba balance waa maxay waa dheelitirid okay macnaheedu waa maxay balance marna waa haraagaaga way okay your balance is not enough hadii lagu yiraahdo haraagaaga kuguma filna way marka balance ayaa la yiraahdaa balance waa dheelitirid wax isku dheelitiridoo oo marka hagaagsan way ereyga 203aad waxa way waa balanced date waa maxay waa cunto dheelitiran okay cunto dheelitiran okay date macnaheedu waa maxay waa cunto date waa maxay waa cunto marka haddii cunto uu yahay marka date-ka marka food oo kale waa macnaheedu food oo kale cunto soomeen kan waa cunto marka waxaad dhihi kartaa haddana balanced food cunto dheelitiran dhihi kartaa haddana balanced date af Soomaaliga waa kan balanced date cunto dheelitiran waaye ayaad leedahay okay marka waan sii soconaynaa waxa ereyga 204aad waxa weeyaan waa breastfeeding okay waa maxay breastfeeding waa maxay waa naas nuujin laba erey ayaa meesha ku jirto oo ah breastfeeding breast waa maxay waa naas weeyaan feeding waa maxay waa quudin ama nuujin labaduba marka breastfeeding laba erey waa la soo qabtay
breastfeeding waa maxay breastfeeding waa naas nuujin ayaad leedahay ereyga 205 waa maxay banana waa muuska intiina badan waa taqaanine qofka muuska oo ay soo sheega bal okay ereyga 200 ilaa hadda waxa weeyaan waa praises okay praises waa maxay praises waa biraha ilkaha lagu xidho si ay u simaan okay praises waxa weeyaan praises dhawaaq af Soomaali waa kan praises okay waa maxay biraha ilkaha lagu xirto si ay u simaan ilkaha dad fara badan ilkahooda bir ku xiran waa aragtay marka maxaa waaye taasa waxaa loo yaqaanaa braces waaye waxaa loo geliyaa kaliya in ilkaha lagu simo oo ilkaha ay toosaan okay ereyga 208 waxa weeyaan waa parol waa foosto dad yiraahdo dadna waxay yiraahdaan fuusto macnaha weel weyn ama fuusto weyn oo biyaha lagu shubto ayaa la yiraahdaa parol waa fuusto way fuustada biyaha lagu shubto sida gelay hata lagu shubtaa iyada marka baadiya la joogo ereyga 209 waxa weeyaan waa bottle okay bottle waa maxay bottle quraarad ama dhalo bottle waa quraarad misana dhalo ayaa dhigi karta dhalo way dhalo okay dhaladay ku sarin ereyga 210 waxa weeyaan black smith okay laba la isku daray laba erey waa hada fiiri okay aan ku macneeyo black smith waa tumaal laba erey isku dhagan halkan waxa way labada erey waxa way black smith way hadii la yiraahdo black waa maxay madow way smith bir okay hadii la isku dhajina black smith waa tumaal qofka birta tuma markuu kululeeyo birta uu tuma kadibna toore iyo waxa soo ka sameeyaa okay ereyga 212 waxa weeyaan waa billy goat ama billy goat waa orgi ariga waxa uu kala baxaa ari ido iyo ari cadka midkiisa labka ah ama ninka ah ayaa waxa loo yaqaan orgi okay billy goat waa orgi ayaa dhahaysaa okay ereyga 212 waxa weeyaan waa beef ayaa dhahaysaa beef waa maxay waa hilib lo'aad hilibka lo'da loo yaqaana beef meesha ka dhihi lahayd cow meat meesha ka dhihi lahayd waxa leedahay kaliya beef waa hilib lo'aad I ate a beef waxaan cunay markaasi hilib lo'aad ayaan cunay last night xalayto marka waa maxay beef ayaa leedahay adiga jumlad soo geli fadlan qaybta commentiga jumlad ku soo qor aniga ka xaqiijinayo inay sax tahay ama inay khalad tahayba ereyga 213 waxa weeyaan become waa noqosho okay noqosho what do you want to become in the future mustaqbalka maxarabta ina noqoto ereyga become ayaa adeegsaday maqashay adiga hadad maqashay waad maqashay become waa maxay become waa noqosho hadaba waxaan kula dardaarmayaa mar kale buugan waa buuga A to Z English to Somali words 100 page ayuu ka kooban yahay erayada ku qoran 1719 eray ayuu ka kooban yahay adigu waa idiga soo dalban kartaa boqolaal ardayna way iga iibsadeen kaliya waxay isiyeen lacag yar oo buuga anigu aan ku diyaariyay maadaama juhdi aan geliyay adiguna fadlan waad iga soo dalban kartaa casharadiisa hadda ayaan duubayaa markay dhamaadaanna waxaan idinkugu soo ogeysiinayaa dhanka telegramka ayaan ku shubi doonaa iyagoo videos ah qofkii buuga iga iibsada iyagoo videos diyaarsan ayaan siin doonaa hadaba buugan waad iga soo iibsan kartaa numberkeena WhatsAppka ayaad kala soo xiriiri kartaa become ayaan joognay become noqosho waaye ayaan dhahnay ereyga 214 waxa weeyaan waa believe hadaba af Soomaali waa ku akhri kartaa waxa waaye believe waa kan believe waa maxay rumayn shayga inaad rumayso tusaale ahaan waxaan dhahaa you must believe in Allah ilaahay inaad rumayso ayaa waajib kugu ah marka maxaa isticmaalay belief ayaa isticmaalay adiguna tooka waad ku soo qori kartaa qaybta commentiga saaxiib ereyga 213 waxa weeyaan waa bakery okay bakery waa kan bakery af Soomaaligeedu
bakery waa bakery waa moofo ama muunfo moofo ama muunfo labadaba waa la isticmaala dad ay yiraahdo marka isku yaab male ereyga 216 waxa weeyaan waa balnas balnas diidan ha sheegin baldi dhahdin balnas waa maxay balnas waa bidaar loo fahmo qashay marka waa maxay balnas waa bidaar la yiraahdaa af ingiriisku bara bidaarta okay ereyga 208 waxa weeyaan waa barrel okay mar kale igu soo laabatay sorry saaxiibayaal okay aan u gudbo ereyga 217 aan u gudbo waxa waaye waa bankruptcy waxa weeyaan waa bankruptcy waa maxay waa kicid misana waa musallifid qaladkii hadda dhacay ee aniga ereyada igu soo laabteen buuga ma aha muujida aniga soo qoray buuga hadda aan buug kuma sharxayo waxaan ku sharxayaa erayo aniga buuga aan ka soo rabay oo halka aan ku soo qoray kadibna midabkooda aan soo bedelay aan soo habeeyay weeyaan laakiin buuga qaladaad iyo waxaas kuma soo laalaabanayaan erey inuu qaldan yahay laga yaabaa inay wax bini aadan diyaari qalad kama dhamaadaane marka waa maxay laakiinse hadda waxa qaladka dhacay kaliya waa maxay anigu marka meesha kuma sameynine waxa qaladka ka dhacayo halkan waxa loo yaqaanaa waa aniga soo qoray marka anigu u bedelayay PDF-ka ayaan ku soo qoray halkaas marka qaladaadka kaliya muuqaalka aan sharxayo waxa aan sharxayo PDF-kan ayaa qaladaadka ku jira oo kaliya ereyga 217 waxa weeyaan waa bankruptcy waa kicid ama musallifid kicid macnaha musallifid qofka inuu kaco oo markaasi uu sameeyo markaasi wax la yiraahdo ereygan markaasi bankruptcy la yiraahdo marka hadii adigu aad baratay hadda saaxiib waliba waxa weeyaan waxaad haysataa fursad adigu ingiriiskaaga aad ku tijaabin karto inaad dhisi karto erayo iyo ama jumlado iyo in kale hadaba ereyga 217 wuxuu ku leeyahay wali bankruptcy waa maxay bankruptcy waa kicid waxa loo yaqaanaa waa kicid waa maxay magac ahaan ama fal ahaan ama sifo ahaan iyada la kala qeybiyaaba waa maxay bankruptcy waa qof ama shirkad aan awoodin inay bixiso deymahooda okay bankruptcy fal ahaan markii la adeegsanana in qof ama shirkad lagu dhawaaqo ama uu noqdo mid aan bixin karin deymaha bankruptcy sifa ahaan waxa sidoo kale loo isticmaalaa si guud si loogu tilmaamo wax ka dhamaaday ama aan lahayn awood marka bankruptcy waa maxay kicid waa maxay in waxay lagu lahaa ay kor u kacaan way erey 218 waxa weeyaan waa bargain waa baayactan in marka qofka la baayactamo bay'ada la galo ayaa waxa loo yaqaanaa bargain waa baayactan ereyga 219 waxa weeyaan waa basic waxa weeyaan waa gundhig ama aas ay dhigi kartaa basic waa maxay basic waa gundhig misana aas hada waa aragtay maxaa waay heerka ingiriiska basic waay marka waxa loo jeedaa aniga heerka aas-aaska bilowgan taaganayo waay ereyga 220 waxa weeyaan waa bazaar waa maxay waa bacadle supermarket qof ka shaqeeyo macna marka bazaar loo yaqaan bazaar waa maxay bazaar waa bacadle misana waa supermarket okay ereyga 221 waxa weeyaan waa beach okay beach waa maxay waa xeeb weeyaan beach waa xeeb weeyaan ama sidoo kale ingiriiska waxa la dhihi karaa coast waa xeebta ereyga 222 waxa weeyaan waa bead waa gadka ama garka okay garka kugu yaal way bead waa gadka marka ereyga aad barato jumladada soo diyaarso ereyga 223 waxa weeyaan waa because dadka dhan way adeegsadaan maxaa yeelay ama waayo marka la maxaa yeelay because waayo ereyga 224 waa maxay beacon okay waa kan beacon waa u gacan haadin okay beacon u gacan haadin in qofka loo gacan haadiyo sida salaan wax la mid ah ereyga 225 waxa weeyaan waa
beetle dabaq beetle waa maxay xaar walwaal okay xaar walwaal waxaya xayawaanka yar oo xaarka daldala waa aragtayba waxaa loo yaqaana ka beetle waa xaar walwaal loo yaqaana halkaasaan kusoo afmeeraya casharkeena inoo soo bilowday waqtigii haddii halkaas aad ila joogto fadlan haddii inta eray aad baratay saaxiib hal eray inaad jumlad ku soo qorto ma isku dayi kartaa hadday haataa jawaabtaada qaybta commentiga ka arko haddaad isbootaynayso aan ku arko adigoo commentiga iigu soo qorayo marka ugu dambaysana waxaan ku farayaa in lagu saliyo nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam